بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم walaalahay meel kasta joogtaan kusoo dhawaada janaalka waa janaalkiini waa janaalka walaashiina shukri sahom maanta iyo fiideo cusub. maanta waxaan idin wadaagayaa insha allah waxyaabo iska basiid ah oo maasha allah fawaaid badan leh waqtiyada qaboobaha lagu jiraa. waxaan ku dhahay hergeb dure, waxaan ku dhahay riiraxyo qabowga hergebka yarko dadka ku dhaco maasha allah tabaarakallah. wax u fiican maasha allah tabaarakallah. hadda especially wadanka anaga aan joogno waa Canada. daawooyinka ciyaalka yaryarka ilaa doctor kuu soo qoro lama helo oo farmasiya sharoobooyinka hergebka laga soo gadan jiray lagama helo. mar horaa la dhamaystay meeqa dadka wax loo sheegay. hadda daawada qandhada ma helaysid ilaa doctorka kuu soo qoro. marka maasha allah tabaarakallah ilaahay caafimaad hana siiyo kulligeenba mana noo baahiyo. marka maasha allah tabaarakallah walaalahay maanta waxaan jeclaystay wax yar oo gurigaada jikadaada aad ka heli karto oo basiid ah oo ugu kaaftoomi kartid haddii daawo yar oo iska kaalmaatay ee ilaahay caafimaad laga helaa la waayo. waxaan soo qaatay tuun 2 xabo tuun aan soo fiiqay maasha allah. tuuntan waa tuunta organic inkastoo wadankeena Afrika organic bis laga helo laakiin wadankan waxaa loogu imaaday tuun cad iyada dhan oo laleeyahay dheertaa laga keenay. marka maasha allah taasna waxaa laleeyahay wax oo daawo oo keep garaynayso long time oo cad ka dhigaysaa ku jirto. marka ma fiicno. marka saas darteed waxaa fiican haddaa isticmaalaysid insha allah inay organic ay noqoto hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan kaloo soo qaatay liin dhanaan aan ku daray waqti dambe iyo tahad codka waxaan saarayaan ku dhahay guriga saacadaas la dhig dhehayso cid kaloo soo jeeda malaha iyo shimbir oo haddii qajaf maqasho hadlayso bis. marka maasha allah intaasna waxaa waaye waa idinla wadaagay maasha allah. liinta waa kusoo miiray iyo tuuntii waa isku soo walaaqay. qashinka dhanna si fiican inaad uga miirtid waaye. haddaad caruur siinaysid waxaad siin kartaa aniga intaan qofkaan siiyaan ka wadaa oo aan ku baroobay horta ilmaha yaryarkaa lama siin karo wax oo sanad jira haddii malab lama siin karo. malabka because wuxuu u baahan yahay qof wax liqi karo ama biyo cabi karo. ilmaha inaa raayada way biyo siisid waaye. haddii yaryar yihiin way ku marganayaan oo dhuunta uga dhaga. wadamada gaaladana waa la ogola ciyaalka markay yaryar yihiin age hadda ma xasuusta uu ku ekaa laakiin malab lama siin karo ilaa hadda waa siin kartaa 8 jir cunug biyo cabi karo 7 jir 8 jir 9 jir iyo saan inta ka korayso way cabi karaan laakiin inta ka hooseyso ma u malaynaa tunta wax yar ay kulushahay. hadda istiraahad cunugan markaa cabaayana saan iyadoo tahayna biyo yar ugu dari kartaa amba tuuntaa ka yareyne amba liintaa ka yareyne adigu kulley waxyaabaha u dhibsanaya khafiifa uga dhigi kartaa. laakiin maasha allah tabaarakallah waa ka faa'iidi doontiin hadduu ilaahay yiraahdo haddii aad baroobaysiin insha allah. maasha allah tabaarakallah qofka quunhaya hadduu waa anfacaya yar iyo weynba maasha allah tabaarakallah. saa idiin soo sheegay hadduu ilaahay yiraahdo yar iyo weynna sanadka waa idiin soo sheegay maahan ilmaha yaryarka oo sanad 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano jira maahan 6 sano wixii ka koreeyay waa siin kartaa. hadduu ilaahay yiraahdo haddii cunugkaa cabeeno aragtid tuunta aad ay u kulushahay tuuntay ka aslisan tahay hal xabo tuuna uga dhigi kartaa. hadduu ilaahay yiraahdo waxaa siin kartaa markuu oo habeenkii wax siisid oo kaleeto uu wax cuno waa siin kartaa because dadka qaarkood gaasay ku ridaa tuunta way kulushahay. cunugii oo oo baahan ma siin kartid tuun calooshii ka gubeysaa. marka insha allah cunugii aan ka cabaynin sida juuskii oo kaleeto biyo yar ugu daray oo faldiir ah insha allah waa siin kartaa sida juuskii oo kaleeto uga dhigay sida casiirkii oo kale cabitaan. marka maasha allah tabaarakallah walaalahay waa mahadsantihiin. fiidiyoga hadduu idin soo gaaro like ii saara share gareeya subscribe saara. walaalaha cusubna waa soo dhaweynaya walaalihii hore iila joogana waxaa leeyahay beedkum jasaakum allah khayran walaalahay insha allah.
sidaan markale aan ku kulmayna fiideo cusub waxaan kaga tagayaa fi amaan illah. Assalaamu calaykum.